waatan wadadii mashquulka badnayd ee ganacsiga ku horumartay iyo daaraha qurxoon balse hadda u wehel noqotay burbur uu sababay qaraxii Sabtidii ka dhacay caasimadda kaas oo bedelay muuqreebkii qurxoonaa oo ay lahayd wadadan muddo 4 maalina wax gaadiida ma isticmaalin oo aan ka ahayn kuwa ay la socdaan ciidamada iyo gaadiidka dawladda iyadoo weli qoysaska raadinaya dadkooda maqan ay lug ku marayaan dhabahan dheer si ay xog ogaal ugu noqdaan gurmadka dhismayaasha hoostooda looga baaday goobayo dadka la tuhmayo inay ku hoos jiraan dhismayaasha burburay dhalinyaro iskood isku xilqaamay ciidamada dawladda mas'uuliyiin ka tirsan labada gole iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa si isku mid ah uga qayb qaadanaya dib u soo celinta bilicda goobtan oo ay ku go'day nolosha dad Soomaaliyeed oo qiimo iyo sharaf ugu fadhiyay dalka iyo dadkaba midda maanta aad arkaysaan oo runtii nadaafadda socoto oo la isku soo baxay iyo xaqiijinta alxamdulillah dhalinyarada is abaabushay oo ku soo baxday dhalinyarada oo ayaga iskood u soo baxay soo abaabulay anigana waxaan sarana ka qayb qaato oo aan qayb kala mid noqdo waxa ilaahay mahadiis ah in aan xaqiijinayno inaan xurmeeno qof kasta oo dhibkan meesha ku gaaray ayaa muhiim ah alxamdulillah jawaabta aad bay u fiican tahay hawshana waa sii wada doonaa haddii noqdo guddiga oo wasaaraha uu ku dhawaaqay guddiga badan oo la sii shaqeynayay dhalinyarada iskood isku abaabulay ee gurmadka qaran sameeynaayo haddii noqdo dhinaca communication haddii noqdo dhinaca isbitaalada tagayo wax walba la soo diiwaan galiyay waa la nidaamiyay laakiin wali ma dhamaanin hawsha waxaana dadaal dheeraad ah rabnaa dadka inay isku soo baxaan qofna uma aysan kala harin gurmadka lagu samata bixinayo dadkii wax ku noqday qaraxii ka dhacay halkan aan taaganahay Sabtidii aynu ka soo gudbnay ilaa 302 qofood ayaa qaraxaas ku dhimatay sidaad arki kartana dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa si mutadawacnimo u hagaajinaya qaraxii burburkii uu geystay ee isgoyska Soobe si wadada dib ay ugu furan aan halkan ku ekeeno shaqada wariinimada marka dhalinyaradan dareen soo qaaday saaka cid gurigoodii ka soo kacin ma jirto laakiin baaqan u dirna ah in dhalinyaradu ay yimaadaan si meeshii loo nadiifiyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadkii dhibaatada soo gaareen xanuunkii ah oo la qaybsano Soomaaliyey waxa jira wadama ay qoom deganaan jireen qoomkiina saaka ay deganeen qoomam kale ay degan yihiin waxa halkan ka dhaca waa wax la raba ummadda Soomaaliyeed lagu cirib gooyo waa wax la raba in dadka la dhameeyo ee dhulka uu haro waxaan leeyahay waxa ka dambeeya dad shasheeyo muuqaalkan ayaa muujinaya baaxadda uu la eka qaraxii dhacay Sabtidii kani oo lagu sheegay kii ugu weynaa ogaanta inta la xasuusto ee caasimadda ka dhaca Munassar Maxamed Abdi Universal TV Muqdisho